مادام حكي فين كوجود اللي تفسير سريع في يسوي من هذا الأمر حكي كل تجسا وقبل قضاء الحال. حكي إذا الإرادة وحكي ضمان عقيدة السومال لأنه رد فريا إن إذا الإرادة كلام زائد امتحانك والاستاء. أكبر ما شاء الله. مش تاول يا رب حكي هذا مش كذي شباب عقيدة شغال في
ogaada wax ka duuba deedna laga daawado caalamka ma aragno marka aad baad mahadsantihiin aad iyo aad baan mahadnaqaynaa maanta saaba soo basatay aad baan anigu maadadaan dhigaa waxa kamida waxa weeye waa maadada ingiriiska ayaan dhigaa 5 class oo 8 ayaan dhigaa iskuulku waa iskuulka ugu ardayda badan ee Somaliland class grade kasta waxa uu ka kooban yahay 5 class shan luga shan tuura shan tiira shan 8 weeyaan magacaaga ku qodlaadaya maadada maxay tahay maadada waxa weeye cilmi ardayda soo u tacaashaan maadaama ku bulshada ardayda waxa uu tacaala si fiican ayaan wax u qodnaa si fiican baan u qarsanaa aad iyo aad si fiican baan u shaqeynaa dugsiga bulshada dugsiga marta waa dugsiga fiican shaqada baan leedahay waa dugsiga ugu daaweynaya magaaladiisa dad badanna markaasi isna oo barnaamijkeeni waxbarashada anoo ku waraysan doona macallimiinta ka mid ah oo dugsiga ka shaqeeya Ibrahim wax ka barta macallin wuxuu ku kooban yahay siisa taariikhda dugsiga بسم الله الرحمن الرحيم أنا بابا عبد الشكور محمد أحمد دكسي هو دكسي وين الشيخ علي إبراهيم الشيخ علي إبراهيم وعان تاريخ البرشلونة كلها قيمة هي صلاة من المسؤولين بدن ومضى حرمان تدخل مع المشاة أي صومرين هلكن أرداء كهاين سيدا ضد عان أما الناس المشرحين أما ما توسيرة أيضا سكول كصومرين سكول كانوا هاي سكول كوين أما اسمه أرديسة سكول هذا وين أيوب كذا أنا سكول تاريخ وهذا الدولة يعني سبحان معلمين وحكي دكتور موصل إيش شغال وحصلنا وحبرت في بيتنا برنامج كين الرشدة والكورة رئيسنا دونا معمولنا دكتور موصل إيش شغال إبراهيم لو فارنا محمد حسن كسر له وقفوا برنامج كين وحبرشدة aad iyo aad baan ugu dhowahay maadaama aan faraxsanahay ardaydaydii oo ka bartay walilaahay dugsiga shaqada tahay oo maanta iyadoo saxaafadda martay wareysanaysaa soo dhawaada aad buu mahadsan tahay su-aasha ugu horeysa weydiin doona waxay tahay maadaama dugsiga yahay dugsigii ingiriisku dhisay dugsiyada ugu waaweyn ee dalka jamhuuriyadda Somaliland xilli maa la aasaasay dugsiga shaqada Ibrahim dugsiga shaqada Ibrahim waxaa la dhisay 2000 iyo maxaan ku dhahay 2010 ayaa dhismaysa maadaama xilligaas uu ahaa waqti badan soo jiray imise dufcadood baa ka baxday dugsiga shaqada intan aan ku joogay waa ee shanaad ka baxay aduu maamul ahaan intee baad xilka haysay dugsiga shaqada waxaan hayay muddo maxaan ku dhahay ilaa iyo 2015 maxaad u qorshaysteen ardayda maadaama imtixaankii kusoo dhowaya ardayda fasalada sideedaad ay u gudbaysa dugsiyada sare maxaad u qorshaysteen ardaydaas ka baxaysa maadaama imtixaankii kusoo dhowaya waxaan loo qorshaynay runtii maxaan ku dhahay xiisabada caadi waa la siiyaa imka waxaan ugu daray xiisabka inka dambe waxaan ku maanta waxa macallin soo maray si looga maxaan ku fish loo siiyo adalkii badan oo dhamaaday waxaan muxuu kaga duwan yahay dugsiga shaqada Ibrahim dugsiyada kale ka jira dalka jamhuuriyadda Somaliland runtii waxaan oran karaa wuxuu kaga duwan yahay hadda waxa weeyaan waa macallimiinta in waxa uu dugsiga wadaa way maamul kaliya wax ma qabto wuxuu kaga duwan yahay macallimiinta daacada iyadoo dhaxal jirto iyagoona maxaan ku lacag ku filan qaadan waqti kasta u taagan dabada gelin bayna u shaqeeyaan maxaan ku leeyahay ardayda dugsigu maadaama yahay dugsi aad u ballaaran oo aad u weyn imise galaas ku kooban yahay guud ahaan dugsigu wuxuu ka kooban yahay guud ahaan 20 class gelinka hore iyo gelinka dambe dad looga shaqeeya waxaa naga xidhan hal class 39 class waxaad ardayda kula talin lahayd ardayda daawanaysa kulay ardayda daawanaysa bulshada daawanaysa maxaad u talin lahayd oo maxay ahayd fikirkaaga ah ama maxay ahayd waana waxaan u soo jeedin lahaa ardayda maxaan ku dugsiga sabxa shaqada Ibrahim labada gelin waxaa dhigtaan inay ku adkaystaan oo maxaan ku yiraahday waxbarashadooda oo ay akhlaaqdooda ilaaliyaan maxaan ku leeyahay dhaqamada xun ee hadda dhinacyada la xiiranayo meelaha filmadan maxaan ku leeyahay geeska jeer waxbarashada ay ka kulmayso inta bay ka fogaadeen runtii iyagoo ka fog ardayda maxaan ku isku gabar kuwa soo martay arday dhinac xiran bay ku arag
habluhu dhammaan ilaa sharaday xiran daladooda xijaabkooda runtii aad u asturan yihiin waxaan kula duwanay iskuullada kale ardayda fulaasharabaada oo jirkeedu u yaro lama soo gashay iskuulka aad u asturan yihiin waxayna maxaa ka jisaasiyo dadkooda allaha dhaafo way keligii waxa maanaan qabaneen haddaana waalidku aanay caawinaynin marka ardayda aad u akhlaaq fiicanta waxaan leeyahay halkaasu hore uga sii wada lana tartama maxaa kule ardayda qaybkiina qaydhar kaliinkana waxaan leeyahay waa inaad ogaansaasan waqtiga ayada qobanayno haray si aad maxaa qoday guul ugu keeni lahaydeen imtixaanka shahaadiga ay koodeen kusaa insha allah iyayna fakartiina guulisay noqdaan dhammaan ummadda maxaa qoday ardayda dugsigadan khaasatan dugsigana maamulaha kaa shaqay ibraahim waan u ducaynaya insha allah inay noqdaan kuwii dalka iyo dugtoodaba maxaa qoday anfaca insha allah waxaana leeyahay sad iminka waa isku ilaalisaan halkaas uga sii wada dhinac kasta وهذاك داود يا بس وها مملوك تسيق مصلح إيش إبراهيم وفاطمة محمد حسن وما تقول إيش إن برامج كنا وحباشرة برامج كذا وحسيته سيدرسوا تبني يعني وخطر حسن عتية واحد كرسوا عطار وقال ميوس برامج كنا من بداية الأمور دول واحد كتب لنا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.